Aasaasaha shirkadaha Tesla iyo SpaceX ninka lagu magacaabay Elon Musk ayaa hadda ninka ugu taajirsan adduunka waxa uuna haystaa hanti qiimaheeda lagu sheegay $180 bilyan. Tirada bilyaneerada caalamka ayaa sanadkan noqotay 2,200 oo bilyaneer. Dhammaan bilyaneeradaas qofkooda ugu hantida yar waxa uu haystaa $2 bilyan. Haddaba waxaa jirta su'aal dadka intooda badan ay isweydiinayaan oo waa kuma bilyaneerka ugu da'da yar adduunka? Su'aashan jawaabteeda ayaan rabnaa inaan maanta barnaamijkeena xogdoon ku falaqayno oo ayadoo faahfaahsan aan faraqa kugu shubo. Fadlan intaanan barnaamijka guda galin waxaan kaa codsanayaa inaad fiidiyowga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. Waayahay, Kylie Jenner ayaa noqotay bilyaneerka ugu da'da yar adduunka sida laga soo xigtay liiska bilyaneerada ee majalada Forbes ay shaacisay sanadkan. Gabadhan ugu da'da yar qoyska Kardashian ayaa hanti ka samaysay ka ganacsiga waxyaabaha la isku qurxiyo. 22 jirkan ayaa aasaastay isla markaana leh shirkadda Kylie Cosmetics taasoo 3 sano jirsatay. Sanadkii horena iibkeeda lagu qiyaasay $360 milyan. Waxay bilyaneernimada ka hor gaartay milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg kaasoo bilyaneer ku noqday isagoo jira da'da 23 sano. Aasaasaha ahna milkiilaha shirkadaha Tesla iyo SpaceX ninka lagu magacaabay Elon Musk ayaa hadda ninka ugu taajirsan adduunka sidaan hore u sheegnay. Waxa uuna haystaa hanti lagu sheegay qiimaheeda $180 bilyan. Tirada bilyaneerada caalamka ayaa hoos u dhacday sanadkan oo waxay noqotay 2,200 halka sanadkii hore ay ahayd 2,208 qof. Dhammaan bilyaneerada liiska ku jira 252 qof oo kaliya ayaa dumar ka ah. Liiska maalqabeennadaasi waxaa ku jira 52 muwaadin oo u dhashay UK. dalka Mareykanka ayaa dalka ugu bilyaneerada badan caalamka kaasoo leh 607 qof oo bilyaneer ah halka Shiinaha uu kaalinta labaad ku jiro uuna leeyahay 324 bilyaneer.